kusoo dhawow sahanka nolosha riwaayaddeenna taxanaha ah ee xiisaha leh taasi oo ku socota nolosha jilayaasheenna xiisaha leh ee daaqsan intaynan middaas u gudagelin aan soo koobna arrimaha xiisaha lahaa ee dhacay inta lagu guda jiray xalqadii la soo dhaafay gallat iyo joofle waxay isku dayeen fal burcadbadeednimo umana suuragelin arrintaasi gallat wuu ku naf waayey jooflena nasiib ayuu ku badbaaday muxuu yahay qorshaha joofle hanad xaawakiin wiilkeedu wuxuu qaatiin ka istaagay garaaca uu adeerkiis mooga isaga iyo hooyadiiba garaaco way iskhilaafeen wuxuuna ka cararay guriga ma ku soo laaban doonaa arrimahaas iyo kuwo kale oo xiise leh kala soco sahanka nolosha ayeeyo mamshaari ayaan quraac u cabbaynaa haa hanad ma haya niyad aan quraac fiican ku kariyo waan ku baryaa ayeeyo kalluun ma ii karin kartaa kalluun la qalajiya ayaan jikada ku arke waan ku baryaa qaar ii kari ayeeya ma jecli sida uu kalluunka u soo shiiro qofka keliya ee aan u karin karo waa sawjkayga oo keliya awowgaa cid kale uma karin karo waan ku baryaa ayeeyo fakarkaas ka fiican ayaan ku hayaa hanad ka warran haddii aan kalluunka ku siiyo oo aad guriga ku laabatid si ay hooyadaa kugu kariso meeshaas kuma noqonaay mar dambe meeshaas kuma noqonaay marabi hooyadaa ayaanba ka hadlaynaye waatan isoo wacaysee balukaadi halow hooyo sidee ku barideen xaawakiin su'aasha lagaaga baahan yahay waa inaad i weyddiisaa sideed xalay ku seexatay hooyo sidee xalay ku seexatay gabadhaydii indha isuma keenin xalay oo dhan waan isrogrogayey oo waxaan ka fakarayey riwaayadda aad adiga iyo wiilkaaga jilayseen waxaan u haystay inaan aniga iyo dhiigkar aan isdaynay laakiin xaawakiin adiga iyo wiilkaaga waxaad u tafaxeedateen inaad dhiigkar igu riddaan hooyo waan ku baryaa hanad u sheeg inuu guriga yimaado waan isku dayey halkan ayuu joogaa ee adigu la hadal waryaa hanad kaale hooyadaa la hadal kaalay ma rabo inaan la hadlo ma rabi inyow hooyadaa la hadal maya xaawakii wuu diiday inuu kula hadlo u sheeg inuu yimaado guriga haddii kale ayaan ku keeni doonaa waa yahay hanad waxaa la joogaa xilligii aad guriga ku laaban lahayd meel uma socdo waan diiday guriga ma aadaysaa mise intaan dhegta ku qabto ayaan guriga hooyadaa kugu geeyaa may maqlaysaa waayahay waan baxayaa alla ma anaa u malaynaya inuu sidaas fudud u yeelayo inuu guriga dib ugu laabto waad ku mahadsantihiin dhammaan inaad naga soo ajiibtaan shirkan ka soo qaybgalkiisa aabbe soo xaalka caadi maaha xaalku caadi maaha weli moogay wuxuu sii wadaa weli hawshiisii musuqmaasuq ahayd waxaannu aaminsannahay inuu jiro sarkaal dawladda ka tirsan oo u fududeeya helitaanka shatiyada sharci darrada ah ee kalluumaysi ee la siiyo maraakiibta shisheeye waa wax laga murugoodo run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay in fidmawadayaashu dhankeenna soo maraan oo ay biyaha noo waardiyeeyaan laakiin wayna wada sireen dhammaan wixii tegey yeenan ku mashquulin oo waxaa la yidhi wax tega tiigsimaad ma laha waan ognahay inaan xal u heli karno sidii aannu mooge uga joojin lahayn arrintan biyaha ku saabsan dad badan ayaan u baahannahay haddaa 4 qofood oo keliya ayaan nahay halka dhanka kale ay naga jiraan mooge iyo lacagtiisa iyo sarkaalka musuqmaasuqa ah ee u gatay haa waan ognahay horta aan maskaxda ka shaqaysiinno kadibna aan qorshaha la wadaagno dadka reer daaqsan oo maxaad maanka ku haysaa waagii ugu dambaysay daahir wuxuu qaaday hees ku saabsan musuqmaasuqa oo kulmisay dad badan oo reer daaqsan ah haddana waxaan soo saaray hees fiican oo qof kastoo reer daaqsan ah u horseeda kalluun cunista arrintaasoo wax fiican maaha
maanta waxaa keliya nugu fiicnaan lahaa inaan helno guddoomiyaha degmada. ka warrama haddii uu isna musuqmaasuq yahay sida sarkaalkii hore aad la kulanteen soo taasi dhibaato kale maaha. waan iska nasiibsanaynaa waa inaan ugu yaraan wax uun isku daynaa. waxaan hayaa fikrad ka shaqaysay waddamo fara badan. oo maxay tahay fikraddaasi aad noo haysid? bannaanbaxyo nabadeed oo aan ka dhigno xafiiska guddoomiyaha soo maanad dhihin macquul ma aha in xafiiska la galo. waa sax arrinkaasi. haddii aynan gudaha u geli karin waa in aan isaga ku kallifnaa inuu soo baxo bannaanka ayuu u soo bixi doonaa kadibna arrimaheenna ayaan u sheegan doonaa. oo markaas cabdinuur nama hor istaagi doono waan ka helay qorshahaas. hani waxaan filayaa in ayayda ay hanad ka dhaadhiciso inuu guriga ku soo laabto. hooyo ka waran haddii uu diido inuu guriga ku soo laabto? wuu ku soo laaban doonaa hooyo. haddii ku soo laaban waayena? hani adiguna ma waxaad qorshaynaysaa inaad carartid? yaa maya hooyo. ma hubtaa oo maxaadan u cararaynin oo aadan wareer iigu ridaynin sida hanad sameeye oo kale? hooyo aabbe mooge makuu dhaafi kari keligaa. haddii annaga dhan kaa tagno garaac ayuu nafta kaa qaadi karaa. maxaa sidaas u dhahaysaa hani? run waay hooyo macaan. maya sidaasaa u fakerin gabadhayda. haya dheh mooge waa nin fiican. hooyo nin fiican dumarka gacan uma qaado. macallinka iskoolka ayaa sidaas nu yidhi. aad ayuu u xanaaqsanaa marka ma kaantarooli karo caradiisa laakiin waa nin wanaagsan. hooyo marmarsiyo ha u samaynin. nin wanaagsan ma aha. albaabku wuu furan yahay. soo gal gudaha aamina. hani suhayb bannaanka ku soo ciyaarsii. aamina sidee yahay joofle? aad ayuu u fiican yahay. waxaan kuugu imid inaan kaa raaligeliyo dhibaatada aan gurigaaga u keenay qaalidaydii xaawakiiney. runtii ma ahayn inaan ku idhaahdo kalluunka ii iibkay saaxiib. waxba eeddaha isi saarin aamina. go'aankayga ayaan ku baxay. aad ayaan uga shallaynayaa. ha ka shallaayin soo ma ogid bixitaankii aan baxay ee aan kalluunka soo gaday waxay i dareensiisay inaan noolahay oo ay nafi igu jirto. sannado badan ma dareemin waxa aan dareemay markii aan kalluunka gadayay. haa sax waxaan maqlay inaad suuqgaynta ku fiican tahay saaxiib. igu soo biir oo ila iibi kalluunka. sida caadiga ah waxaan iibiyaa kalluunka joofle iyo dirir waana kala qaybsannaa faa'iidadiisa. haddii aad igu soo biirtana dirir iyo dhallinyarada kale waxay ku qasbanaanayaan inay kalluun badan keenaan. markaa dadka kalluunka si fiican ayay u cunayaan. baahida kalluunka ee daaqsan ayaa sii kordhaysa. annaguna lacag ayaannu tabcaynaaye maxaad ka leedahay saaxiib? aamina waxaa fiicnaan lahayd inaan haa ku dhihi karo laakiin nolol adag ayaan ku jiraa. waxa keli aan u baahanahay waa nabad. wagar xaawakiin maxay nabadda kuu daraysaa haddii aadan xorriyad haysan? bal ii sheeg walaalo. waa runtaa saaxiibay. lacag aan leeyahay waxay ka dhigan tahay madax bannaani xorriyad aan wax ku kala doorto. waan ogahay. ma og tahay in maalintii dhawaytoole ee jooflo la toogtay ayaan baraarugay saaxiibay. mar kasta waan kicin jiray oo waxaan dhihi jiray orod noo raadi nolol maalmeed. ka waran hadduu dhiman lahaa saaxiibay. carruurta yaryar ayaan ku qasbanaan lahaa inaan aniga nolol maalmeedka u raadiyo saaxiib. waa run waan la dhacay baraaruga caynkaas ah. waxaan u malaynayaa mar kasta oo ay wax igu dhacaan waxaa la iiga baahan yahay inaan ku baraarugo oo aan wax ka barto laakiin waan iska indhatiraa aamina. hadda waan baraarugay. cid aan kaga baahanahay inay baraarujiso ma jirto. saas ayaan kaa rabaa saaxiibtaydii qaaliga ahayday. hadda ayaan jidkii toosnaa haynaa saaxiibay. marka nama kugu daraa ganacsiga kalluunka? igu dar oo welibana si fiican igu dar. sug aan lacagtii kalluunkii aan shalay gaday kuu keenee inta aanan lacagtayda ku qaldin oo aanan isticmaalin. xoogaa yar ii sii hay. ma raba in joofla uu lacagtaa damac ka galo inta uu ka bogsanayee. waxaa laga yaabaa inuu jaadkii miro ula cararo saaxiib. waa yahay lacagtu halkan ayay ku badbaadaysaa. shaki iigama jira middaas.
haddii aan shaki ka qabi lahaa ma waxaan ku odhan lahaa lacagta iisii haay guriga ayaan iminkana u laabanayaa si aan kalluunka u qallajiyo. waayahay halow hooyo hanad guriga ma imaanayaa mise ma imaanayo u sheeg oo waxaa ku dhahdaa soo noqo anigu dhibka mooga ma rabee. oo miyuusan guriga imaan cabbaar ka hor ayuu iga soo tegay. maya ma arag hooyo. ma aqaan sababtoo ah halkan wuu ka tegey oo waxaan islahaa guriga ayuu ku laabtay saacaddan. alla rabbiyow hadda xaggeen u raadiyaa waayahay. ma hubtaa in arrintaasi tahay waxa ugu fiican aanu samayn karro haddeer. aabba shiikh rooble waxaan bannaanbaxyada nabadeed u dhigaynaa waa in aan ku kasbanno ogaalka guddoomiyaha degmada. ka waran haddii askartuna xabadayso soo dhibaato maha idun meesheeda leh. aabba sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay inaad noogu ducayso inuu bannaanbaxo si nabadgelyaha ku dhammaado. yaa abbo inakeena aan muujinno kalsooni ah in boolisku shaqadooda qabsan doonaan taasi oo ah in ay ammaankeenna sugi doonaan oo aysanna weerari karin. maxay kula tahay shiikh rooble noogu ducey bannaanbaxa nabadaysan. dee waad u jeeddaa jid kale ima muuqdee waana idiin duceeyo ducadeeda ayaad qabtaane ordaha ku dhaqaaqa bannaanbaxa nabadeed. waxaan u baahannahay dad badan shiikh rooblow waa inaan dad badan isu keennaa. dee waxaan la soo hadlayaa haddeer kalluumaysatada aniguna rag kale ayaan raadinayaa oo nagala qayb gala bannaanbaxa. waxaan u malaynayaa in anigana laygaga fadhiyo inaan dhallinyarada isu keeno. aniguna haweenka ayaan keenayaa. waxaa ila quman haddeer aniga inaan haweenka la keenin waayo waxaan ka baqayaa in xaajadu isbeddesho oo qasanto xaajada tanu. wax walba oo daaqsan ka dhaca way saamaynayaan haweenka marka waxaa ila quman in aan iyaga talada u dayno in ay ka soo qayb geliyaan iyo in kale. waayahay saacad kadib ayaan halkan isugu imaanaynaa kadib ayaanu annagoo dhan xafiiska guddoomiyaha aadi doonnaa. soo dadaala idinkuna. daahir hal daqiiqa ma kula hadli karaa? haa aabbe haa. wax wara ma ka haysaa geelii arooskaaga loogu talagalay goormaysa imanayaan waa la yaabana arrintaas anugii. berito ayaa geeli la keenayaa aabbe. waa khayr waan kugu faanaa daahir runaantii. aabbe waan kaaga mahad celinayaa wax kastood ii samaysay iyo wax kastood ii ahayd. daahirow maanta maxaad la qashuucsan tahay maxaa kaa siiyey bal ii sheeg. caadi waaye aabbe waxaa igu soo dhacay inaan mahdiyo dadka noloshayda saamaynta u geystay marka maanta waa maalintaydii mahad celinta. aamiin aabbo wax yar kadib ayaan bannaanbaxa isku arkaynaa soo maaha. haa aabbe wax yar kadib baan is arki doonnaa. hanad maxaad jidka keligaa u socotaa? adiga ayaa ku raadinaya mudane dirir. ma aniga? haa waxaan diyaar u ahay inaan fursad aad aabbe iigu noqotid ku siiyo. waaw hanad runtii aad ayaan u faraxsanahay inaan arrintaasi maqlo. ballan ayaan kaa qaaday inaanan mar dambe ku niyad jebin wiilkaygiiyow. waayahay sababtoo ah fursaddaasi hadda ayay kuu bilaabatay. kuma fahmin hanad waxaad ula jeedda hadalkaaga. adiga inaad aabbe ii noqotid ayaad rabtaa aniguna inaan wiilkaaga noqdo ayaan rabaa marka sida wiil iyo aabbihii aan u wada noolaano. haa lee idheh. hanad arrintu waa ka adag tahay sidaas. kama adka guriga waan ka soo cararay ma rabo inaan la noolaado bahalkaas mooge ah waxaan rabaa inaan adiga kula noolaado. hanad hooyadaa ma og tahay arrintan? maya ma oga inaan halkan joogo oo aan adiga kula hadlaayo. waa inaan la hadlaa hooyadaa. waan kuu sheegay inaan go'aan gaaray kuma laabanayo gurigaas oo mooge jooga bahalkaas. muxuu kugu sameeyey mooge? arag suu ii garaacay fiiri arag. bismillaah maxaa waaye sidaan waxa kuu galay? haa wuxuu sidaas iigu garaacay hooyaday ayuu garaacay waana waajib i saaran inaan difaaco hooyaday.
aad ayaan uga xumahay hanad arrintaasi intaas keliya ma aan wax badan ayaa kuu dhiman sug aan lugteeda ku tusee wah maxaan kugu sameeyey hanad waan ka xumahay in aniga dartay ay waxaana kugu gaaraan wiilkaygiiyow marka weli ma rabtaa inaan dib ugu laabto oo aan halkaas ku noolaado mise waxaad ii oggolaanaysaa inaan adiga kula noolaado hanad ilmahaygii ayaa tahay oo waan ku difaacayaa intii karaankayga ah mar dambe oggolaan maayo in tan oo kale ay kugu dhacdo wiilkaygiiyow waayahay marka gurigaaga ma aadi karnaa hanad wiilkaygiiyow maqaayadda sheekh rooble ayaan ku geynayaa si aad waxaad rabtid aad uga cuntid maqaayaddaasi kadib ayaan halkaasi kaa kaxaynayaa wiilkayga maxaan gurigaaga u aadi la'nahay hadda sababtoo awowga ayaan ka ballan qaaday inaan bannaanbax ragga xun looga soo hor jeedo aan kala qayb galo ma soo daahi doono wiilkaygiiyow ma iga tegaysid soo ma aha ballan ayaan kaa qaaday wiilkaygii inta aan awoodo kaama tegayo daahir maxaad halkan ka qabanaysaa waxaan u malaynayey inaad ku jirto abaabulka dhallinyarada mar hore ayaan sameeyey cajiib markaa diyaar ayaa tahay soo ma aha si aad u haystid heestii musuqmaasuqa haa xaqiiq laakiin middaas ka hor waxaan ku hayaa hees kale oo aan rabo inaad dhegaysatid haddii ay tahay heestii kalluumaysiga weli dhegahayga ayay ka sii guuxaysaa ee iga dhaaf taas maya middaas maaha ma hees cusub baad heestay oo aad dubtay haa waaw cajiib marka aan bannaanbaxa nabadeed ka soo dhammaanno ma ka dhigan karnaa waa in aan hadda baxnaa haddii kale waan daahaynaa sow ma sugi karno haa waan sugi karnaa hibo waad og tahay inaan ku jeclahay allah anigaa kaa daran xabiibi maba sugi karo in aan 2 cisho gudahood xaaskaaga ku noqdo shaki yuusan kaa gelin jacaylkan aan kuu qabo iyo kan aan kuu qaadi doono sow xaalku caadi maaha daahir sow ma fiicnid waan fiicanahay haa waayahay ina keenaan bannaanbaxa aadne haddii kale aad ayaannu daahaynaa wax yar kadib ayaan kaa daba imanaya aday iska sii soco waayahay soo xidh meesha oo noo imow sugaan heestaan aan hiba bare aan qoraalna ka dhige khaalideedii hibo dhegayso heesta ku jirta nambarka 4 waxaad ka dheehan doontaa sharaxaadda waxyaabaha qaar waxaan alle kaaga baryayaa inay niyadda kuu dejiso marka aad murugaysan tahay waa jacaylkaagii daahir hibo aaway daahir heestan isagaa si fiican noogu qaadi lahaaye wax yar kadib ayuu imanayaa maxay ahayeen dadkani maxaa sidan laga wadaa maxay ka macno tahay waxaan dalbanaynaa inaan aragno guddoomiyaha degmada war waad riyoonaysaan naga tag war maxay ahayeen dadkani ina aan riyoonaa waa gartaasi inaan riyoonaa anagu sax waaye khibarruteed waaye sax waaye xaq baan u leenahay arrintaas maanta oo dhan ayaanu heesaynaa ilaa uu nooga soo baxayo oo uu nala hadlayo yes waagii baa noo dilaacay dareen baan muujinaynaa war maxay ahayd dadkani war naga dhaafa qaylada halkani suuq maaha naga daaya jooji halkan aamus halkan ku daaya dooni mayna ayaan leena ma doonayno musuqmaasuq ma yeelayna abadan gudoomiye war dhammaantiin waad waanan tihiin naga joojiya qayladan kalluumaysiga sharci darrada dooni mayno iska diida saraakiisha musuqmaasuqa ee dawladda ka tirsan war waalidan joojiya haddii kale askar baan idinkugu yeerayaa dhammaantiin waa idin xerayaa joojiya waraa qaylada guddoomiyuhu wakhti uma hayo dadkiinnan shaqola'aantu ay ka badato oo halkan isugu yimid waay kan wakhti ayaa siinayaa arrintan muhiimka ah mudane guddoomiyaha isku dhibin kuwaan dhibwadayaasha ah aniga ayaa arrintooda dejinaya marka iska daa adigu guddoomiye waxaan faraha kala bax
sug aan dadka la hadlee dadkayga reer daaqsin sidee wax u jiraan wax muhiim ah oo ay sheegaan ma hayaan kuwan marka waxba waqti ha isaga luminin waa huba inuusan shiiqa halkan imaan lahayn haddii aysan arrintu muhiim ahayn shiikh maxaa adiga iyo bulshada kale idinka caawiyaa mudana guddoomiye waad mahadsan tahay sida wanaagsan aad noola dhaqantay waxaa halkan u nimid dhibaatada ay nagu hayaan maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysanaya biyaheenna ee weliba buux dhaafiyey waxaan aad uga walacsannahay kalluunkeenna la guranayo waxaana laga yaabaa in 5 sano gudahood lagu xaalufiyo khayraadka baddeenna iyo kalluunkeennaba waa mahadsan tahay shiikh xaq ayaad u leedihiin inaad ka walaacdaan sidii aan wax ugu qaban lahayn ayaa ka shaqaynaynaa mudane guddoomiye annaga ka bulsho ahaan waan ka dadaalnay dhankeenna waxaan isku daynay inaan hor istaagno ninka moogale leeyahay oo ah qaybiyaha shatiyada kalluumaysi ee sharci darrada ah laakiin aad ayaan uga xumaannay markii aannu xaqiijinnay inuu weli mooge biyaha aadayo oo uu shatiyada kalluumaysiga sharci darrada ah siinayo maraakiibta shisheeye waxaa taas ka sii daran ninkaan maaragta cabdinuura leeyahay oo garabkaaga taagan ayaa u fududeeya ninka moogale leeyahay shatiyada kalluumaysi ee sharci darrada ah war idaa magacayga ha idaafaysanin guddoomiye ninkaani been buu kuu sheegayaa waxa uu sheegayo dhan waxba kama jiraan dhib badan ayaan ka marnay inaan kula kulanno guddoomiye haddii cabdinuur uusan wax qarinayn muxuu nooga hor istaagay inaan kula hadalno adiga aan kula kulanno sababtoo ah waxa aad tihiin koox shaqala'aantu ay ka badatay oo aan u qalmin inay guddoomiyaha wakhti la qaataan basle cabdinuur xafiiskaaga ku laabo anigaa la hadlaya dadka laakiin mudana guddoomiye waxaad sheegtay inaadan dembi lahayn marka looma baahno inaad ka welweshid haddii aan guddoomiyaha si gaara ula hadalno waad ku mahadsantihiin inaad soo bannaanbaxdaan sababtoo ah haddii aydan sidaa yeeli lahayn aniga ma ogaan lahayn eedeymahan loo soo jeediyey saraakiisheeda dawladda marka eedeymaha aad u soo jeediseen mid ka mida saraakiisha iyadu waa khatar laakiin waxaa xaqiiq ah inaan aniga baaritaan samayn doono si aan ugu gungaaro dhibaatada kalluumaysiga sharci darrada ah ee haraysay baddeenna aniga idinka ayaa idinla jira waxaan rabaa inaan arrintan soo afjaro fadlan guryihiinna ku laabta hadda looma baahno inaad bannaanbaxdaan anigaa ballan idinka qaaday oo arrinta u kuurgeli doono cid kasta oo falkaas dembi ku shaqa leh sharcigaa la tiigsan doonaa daaqsan waa goob musuqmaasuqa ka madax bannaan helo mooge xaalku waa qasan yahay mooge waan kuu sheegay inaadan dhayaalsan dirir iyo sheekha halkan ayay yimaadeen iyagoo bannaanbaxaya haddana waxay la hadlayaan guddoomiyaha degmada waan isku dayey inaan joojiyo laakiin hadda xaalka waa jiq saaxiib halkaa ayuu marayaa guddoomiyaha degmada ayaa dhegaysanaya oo hadda aan kula hadlaya waxay u sheegayaan arrimahayga dabcan iyo kuwaagaba mooge guddoomiyuhu waa nin aad daacad u ah aad ayay u adkaanaysaa inaad laaluustid walwal anigu kama qabo qof kastaa qiimo lagu hiirsada ayuu ii joogaa waxaan siin doonaa lacag uusan diiri karin uusan arag weligiina arrintan kuma faraxsani dirir xaawakiin wuu cabsaday canugu wuxuu ka cabsaday ninkii la rabay inuu ilaaliyo inuu adiga kuu imaado maysan ahayn xaggee rabileed inuu tago waayahay waad keentay marka hadda fadlan iska bax inta uusan mooga halkan kuugu imaanin wiilkayga ninkaas aniguguma tegaya xaawakiin sidee wax kaa yihiin marka maxaad u timid waxaan islahaa inaan kuu imaado oo aan kala hadlo ayaa sax ah waad aragtay nabarrada uu mooga u geystay wiilkayga wallaahi baan ku dhaartaye inaanan mar dambe aqbali doonin intaasi ay dhacdo alla rabbiyow bax ayaan ku idhi oo waa diidday dhib baa dhici raba hadda isdeji xaawakiin waxba ma dhacayaane
sideen isku dejiyaa dirir sidee maxaad mar kasta noloshayda ugu ciyaartaa xawakiin soo kagamaan digin inaad la hadashid ninkan burcadbadeedka ah waryaa waa cunugaagan madaxa adag ee hanada cashar ayaan kuu dhigay kadibna waad carartay soo maaha kaalay halkan baan ku leeyahay dhaqso kaalay nin faca haddaad raadsata ka warran mooge waa inoo aniga iyo adiga maanta hortayda ka dhaqaaq burcadbadeed yawn fursad aad xooggaaga igu tustid ayaad haysataa maanta kaalay ila dagaal aniga bal kaalay ii imow ma adiga runtii waxaaban kugu xanaaqsanaa afaarahayga aad soo gashay kaalay sidaasi awgeed ayaad wiilkayga uga cadgoosatay maalin dhoweed soo maaha yaa mar dambe kaa oggolaan maayo inaad carruurtayda sidaan u gashid waryaa wax ma tarayo maaliad feeraysaa neexas yow dad kalena iga qabo balaayo gacdhera gacmahaaga xafido xiise uma qabo inaan ku ceebeeyo inaad dhulka i dhigtid kuu oggolaan maayo siika gacantayda gacantaada waan kuu sii daynaya hani yaa la jirtaa adigu ma iida isweydiin bale aabba dirir ayaa la jiraa aabe dirir aabe dirir aabe dirir aabe dirir daahir wakhti dheer ayaad qaadatay hadda waan imid waayahay dadow kaalaya aan idin gubaabiye gubaabada anagoo socono ma ka dhigan karnaa sababtoo ah haddii ay reerkayga halkaan igu arkaan gurigayga leen u tahriibi karaa kaalaya hal daqiiqa uun bay qaadanaysaa marka waxaan gubaabinayaa dadka cabsanaya ha cabsanina maxaad ka cabsanaysaan waxaydaan aqoon ayaad ka cabsanaysaan waxaan geli rabnaa goobo aynaan aqoon u lahayn oo cabsida aan salka lahayn way idin curyaamin kartaa laakiin waxaan idinka rabaa inaad cabsidaas wajahdaan oo aad dhahdaan ima curyaamin doontid riyadayda ayaan ka rumaynayaa waxaan sidoo kale qof kasta oo idinka mid ah ugu hambalyaynayaa geesinimadiinna maalin maalmaha ka mid ahna waxaad noqon doontaan halyeeyo lagu faano sababtoo ah waxaad wajahdeen cabsi waayahay tahriibkeennu hadda ayuu bilaabanayaa inakeena nabadgelyo daaqsan maalin un baan ku arki doonaa xaqiiqdii taasina waxay ahayd xalqad cajiib ah oo ka mid ah sahanka nolosha cajiib iyo amakaag daahir wuxuu go'aansaday inuu u tahriibo yurub waxaase la yaabanahay waxa ay reerkiisa iyo hibo ka odhan doonaan arrintaasi marka xiga kala soco si aad u ogaatid middaas iyo kuwo kale oo badan xalqada maanta caawakiin waxay sidoo kale go'aansatay inay arrin dhibkeeda leh samayso halkaas ayayna salka ku haysaa su'aasheenna maanta xaawakiin waxay rabtaa madax bannaani dhaqaale muxuu kula yahay go'aankeeda xaawakiin waxay rabtaa madax bannaani dhaqaale muxuu kula yahay go'aankeedu waxaan jeclaan lahayn inaad fikirkaaga nala wadaagtid adigoo fariin qoraal gaaban noogu soo diraya nambarka 354 waa 354 iyadoo aysan wax lacag ah kaa go'aynin fadlan ku bilow magacaaga iyo meesha aad joogtid intaan dib dambe hawada ugu kulmayno waa sidaas iyo nabadgelyo